والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن يالي مروين أمام بهوين تاع حسبي كلمية مركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحمانت دمانتين شرف يقوبنيمو يفرح هذه النوعة إن مانت النصر دماضي شركي وينه أفراد حسبي كلمية وسيدجن أو جول إنه قد ماضي طبعا ما قال هم بلينا دمان شعب وين رئيس سومالان دمان تاجرش كل مملة الجوجان بدي بدي يقولوا وكلام هم بلينا دمان إرجع شرفت له يا أخي ما تكسر قيب قصة العشاء كانوا جوبي إن حسبي كل بيشرويني سيقف صومه يقرأ آد بارو مهدقيا مهدقة كتب waxaynu isfaraynaa sida ku furay saaka sheekh khaliil ku furay xil baynu qaadaynaa in hore xil haysay iyo in xilku loo cusub yahayba xilka aynu qaadaynaa waxa weeyaan in nin walba xilka uu qaaday mas'uuliyadiisa ku cuslaato oo la fuudaanin oo ah in qarankani aynu gurmado wanahay in qarankani aynu higsanayna inuu gaaro oo noqdo mid ka mid noqdo qaramada caalamka inuu noqdo qarankani mid dhisma oo qaran dhisan oo dheeli tiran oo cadaalad ku dhisan oo horumar yool horumareed leh inaan ka wada midho dhalino oo nin walba mas'uuliyadda halkiisa ka saaro ayaynu uma fadhinaa waxaan leeyahay dhammaanteen waxa dhicsaa la sheegay iminka golaha dhexe iyo waxbaa la samaynayaa golaha dhexe ama waxaynu haynaa resourceka waddanka aynu haynaa waxayna wada gaadho maaha laakiinse waxayna wada gaadhayaa magaca iyo karaamada xisbiga iyo magaciisu naga dhexeeya ayna wada gaadhaya marka waxaan leeyahay dadka intii carafka ku qorana way ku qornaanaysaa intii aanan ku qorin waa inuu arkaa in walaashii iyo walaalkii saaxiibkii iyo saaxiibadii in lagu qoray shalayna qaar baa ku qornaa maantana qaar baa ku qormaya insha Allah berina qaar baa ku qornaan doona marka inaynu isku talaasulo isku caloo wanaagsanaano oo inay nagu noqonin qof wax yar xubin yar waayay dareen ayaynu ku dhalinin inuu xisbigiisii qiimihiisa intaa lahaa u soo joogay inuu qalbigiisa inuu madmadow ka galo taa waa idinka digayaa waxaan idinku boorinayaa inaad fariintaa maanta khudbaddii madaxweynaha lagu furay shirka tamaanta ku xiri doono fariintaana inaad gaarsiisiin gobolladii degmooyinkii iyo tuulooyinka ka timaadeen ee dhammaan gaarsiisiin waxaan ilaahayna ka rajaynaynaa in guul iyo gobonnimo aynu gaadhno dhammaanteenna waxa wanaagsan aynu gacmaha isku qabsanno sida diinteennu farayso waxa wanaagsan inaan gacmaha isku qabsanno wixii xunna aan iska joojinno arrinta ugu muhiimsanna waxa weeyaan in xisbinimada qiimo gelino war aan run isku sheegnay dib bay nooga dhacday xisbinimadu berigii hore ee oran karo 2002 ilaa 2010 sideedaas sano waxaad moodaa dimuqraadiyadda Soomaaliland inay aad u soo kortay oo dadku xisbinimo isku qiimeynayay oo labada ilmaadeerihii aynu ninna qabiilada kale u raacayne ninba xisbigiisa ka kale ee la joogo ka jeclaa waxa weeyaan hoos u dhac baynu u yar jiraa waxaan leeyahay ka baxno oo aynu horseed ka noqono haddaynu xisbiga kulmiyanahay oo xukuumaddiina maanta haya xisbiga maanta ugu daaweyn ee laba jeer xukunka yeelanahay waa inaynu ka baxnaa oo ehelkaaga iyo saaxiibkaa noqda ka xisbiga kulmiye oorad ana ku qabyaalad waxba kuu tarayn waxay qabyaalad tartaay waxay ilaahay inoogu soo dejiyey qabiilka isu garashu inaan isku garannoba isku soo dejiye laakiinse inaan isku xumayno iyo inaan iskugu faanno midna ilaahay u soo dejinin sidaas darteed waxaan leeyahay xisbinimadu waa inay qiimo yeelataa golaha dhexe maanta waa kaa la abuuray contribution buu bixinayaa magacuu noqon maayo inta kale taageerayaasha xitaa raba in lagu fidiyo waxay dadku wax ku noqdaan ama wax isku yeeshaan ama meesha wax ku lahaadaan kolkuu qofku dareensan yahay inuu meesha bixinaya qaadaan imika waxa lagu bilaabaya golaha dhexe way dhaafi doontaa ilaa taageerayaasha gobolka way ku tartanaa gobol heblaayo imsa taageerayaal kulmiyo leeyahay
oo qaaraanka bixiya ma aha dee sheeko haddii ma tirsana waxaa lagu tirsanaan karayaa ilaa uma $1 ahaato ama $2 qof inuu bixiyo bishii waxaan ku tirsanaan karaynaa qaaraan baan ku tirsanaan karaynaa oo la odhan karayaa gobolladii gobol heblaayo 5,000 taageero kuleeyahay xisb gobolka heblaayo xisbiga heblaayo taasaa qiimo leh markaa runtii waxaan idinku bogaadinayaa in nin walba inaga mid ihi tanaasulka maanta anu hoggaanka idinku noqday ku tanaasulay in gola dhexe nina ku xarooni nin walba tanaasulo oo ka mida xisbiga kulmiye qiimaha xisbinimada aynu hirgelino aad iyo aad bay umahadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan guddiga qabanqaabada waxaan kaloo mahadnaqayaa shirguddoonka waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan saaxiibadaydii halka lagu doortay ee hoggaanka xisbiga kulmiye ee hoggaamin doona muddada 5 sannadood ah waxaa laga yaabaa inay ku yar dawakheed taageerayaashada annaga reer awdal hadday tahay kuwii constituency iyo hadday tahay kuwii constituency saaxiibka saajin maxay tahay oo dadku ma kuna fahamsaneen siyaasadda waxaan leeyahay xisbigii sidii shalayba siiraayo uu isba ugu yar wareejiyey isagoo madaxweyneha iska fadhiya madaxweynaha uu ugu yar wareejiyey muuse umaana ugu yar wareejiye madaxweyne ku-xigeenkii qaranku waa aniga isagana waa walaalkay oo xisbigii ku wareejiyey ana soo barbaarinayo insha allah haddii aan la gaarsiiyena dee mustaqbal la dhisi doono aad iyo aad bay maasni salaamu calaykum waraxmatullahi